wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka ka dhacay gobolka doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhadda ku saabsan kuwa shacabka iyo dawladda ku saabsan. waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka doolo, gaar ahaan magaala madaxda gobolka ee Wardheer. banaanbaxyo ay dadweyne cabashadooda iyo qabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dawladdu ay si xun ula dhaqmeen oo gacan qaad badan iyo qalalaaso ka dhacay oo ay saameysay xafiiskii ONLF inay ciidamadu jarjaraan calankii, in xubno ONLF la xidho, in eed dusha laga saaro muxuu ahaay ONLF. dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dawladdu aynoo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanku burka dawladda ahaa, dawladdu ay dadka iyo dalka lahayd, ee shacabkuusan dawladda lahayn. habkii hore dhaqamaha waa muuqda. waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka Soomaalida ah, oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobolada ay xubnaha ONLF iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ku xadgudbayaan, si ka baxsan heshiiskii dawladda Ethiopia ONLF dhex maray, si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dawladda Ethiopia hadda ay ku dhaqanto. layda dimuqraadiga Ethiopia ka fidaysa inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka Soomaalida. waa garta, laakiin dhinaca dawladda deegaanka waxay idinku eedeynayaan inaad markii aad ku noqoteen gudaha dalka Ethiopia ee dawladda Ethiopia aad heshiiska la gasheen, aad deegaanadii kala duwanaa ee maamulka Soomaalida aad xafiisi ka furateen oo aad banaanbaxyada iyo rabshadaha abaabuleysaan aad ku lug leedihiin. arrintaa ma jirtaa? heshiisku wuxuu ahaa inaanu xafiisyo ka furano meel walba oo Ethiopia gudaheeda dhulka Soomaalida iska daayay. xafiiska ugu weyn Addis Ababa ka furan yahay. dhammaan deegaanada Soomaalidana inaan xafiis ka furano qabale ilaa iyo magaala madaxdaanu doonaynaa. xaq siyaasi ahna u leenahay. nidaamka wadanka ka jira iyo xeerarka ayaa saamaxaya. heshiiska iyagiibaa sida ahaa, sababtaan dagaalka u joojinay bay ahayd. marka eed ma aha taasi, waxa weeyaan waa fulin heshiiskii iyo isbedelka dhulka Soomaalida aan la doonayna, isbedelka dawladda Ethiopia u ogolaatay dhaqdhaqaaqa siyaasiga ee dhammaan dalka ka jira. marka wax dheeri oon keenana ma xuquuqdii dadka, xuquuqdii ururka iyo xuquuqda dadka iyaga weeye. laakiin abaabulka banaanbaxyada ma idinka ale mise shacabka iyaga iskood u kacay? iyaga iskood u kacay. shacabkii si boob ah baa loo xirxiday, daandaansi bay u arkeen, way ka buuqeen, gacan qaad badan iyo ulayn iyo dhaawac badan baa loo geystay. dad badan baa xidhan, gabdha dhaawacyo halisa gaareen oo xataa qaar urla ku jiraan. si yani aan ahayn nidaam dimuqraadi ah loola dhaqmo shacbigu inuu dacwoodo. waxay ka biya diideen siyaasadda dawladda ee gobolka iyo saami qaybsiga iyo xilalka iyo dood siyaasi ahayd, cabasho siyaasi ahayd oo shacabku xaq u leeyihiin in si siyaasi ah loo maareeyo oo laga dhegaystay ahayd. in ciidamo loogu jawaabo ma ahayn. marka waxaa laisla jeeray xafiiskii ONLF, ciidamadii baa xafiiskii ONLF intay galeen calankii jarjaray. marka ka baxsan hirmooge haddaan su-aal kale ku weydiiyo, dalka Ethiopia dowladda federaalka markaad heshiis la gasheen kusoo noqoteen Ethiopia gudaheeda, waxaad matalayseen oo aad ka mid tihiin dadka ku dhaqan gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia. dowladda hadda meesha ka jirtahay waxay idinku eedeynaysaa oo siyaasiyiin ka mid oon la hadalna ay leeyihiin markii ay heshiiska dowladda federaalka la soo galeen waxay iska indhatirayaan oo ay yasayaan dowladdii deegaanka oo aanay waxba la qabsanaynin. marka intuu la egyahay xiriirka idinka dhexeeya iyo idinka iyo dowladda deegaanka? waxaan haysan inuu xiriir weyn naga dhexeeyo. waxaa kale oo xaqiiqaa taas sax maaha. waxaa xaqiiqaa inaanu inaga taayirkooda socon aan dhaqaajinay oo shacabka ugu baaqnay in la garab istaago oo annagu aan garab istaagnay oo yaynaan isu fiirin dawlad iyo shacab iyo jabhad saddex xoog oo iskaashanaya oo danta iyo nabadgelyada iyo horumarinta iyo iskaashiga Soomaalida ka shaqeeya. annagu kumaana haysan xilalka, waxaan ku haysanaa u adeegida dadka iyo dimuqraadiyeynta dadka Soomaalida iyo midayntooda. maanaan yasin iyagaanu magaca siinaynay oo sharafta siinaynay, iyagaanu dadweynaha ula hadlaynay oo hala soo dhaweeyo oo lala shaqeeyo aan lahayn. nidaam dawladeed iyo kala dambeyn iyo sharci iyo cadaalad inuu dadka iyagu helo waxaan u halgamaynay. marka dawladnimada ma diidanin, iyagana aad baan u qadarinayna dhankooda ayay ka jirtaa liidnaantu. haddaan usoo noqdo warkiinan qoraalkeed soo saarteen waxaa ku jirta arrinta dowlad deegaanku ay wado ma aha wax loo dul qaadan karo, haddii aanay joojinna tallaabo ayaanu qaadan doonaa.
waataan ogey inaad heshiis gasheen hubkii dhigteen ood siyaasad iyo usoo jeesateen haddii aad hadda ku hanjabaysaan aad tallaabo idinka idiin gaara qaadanaysaan macnaheedu ma waxay tahay inaad hubkii ku noqonaysaan ood mar kale dagaal galaysaan? maaha macnaheedu tallaabooyin badan oo kalea noo furantaa ahayn. waxa weeye inaan la shaqeyno wada shaqeyn iyo daacadnimo iyo taageerid ba inaga dhankanaga kala kulmayeen. marka de waxaanu ka fiirsan iskaashiga iyo waxwada qabsiga, waxaanu ka fiirsan go-aankaanu ka qaadan aan ku taageeray dawladda in dhidibada loo aaso oo la garb istaago. waxa naga soo gaaray dhibaato amaanaan ka jawaabaynin ilaa iyo 9 bilood ba hadda processkani socday. dulqaadku dhanka iyaga u badnaa. marka tallaabooyin badan oo dagaal ahayn baa furan. haddii ONLF ay rabto inay dadka abaabusho ma ahayn inay xafiiska wardheer keliya ku koobnaadeen. go-aan cad iyo xaq baan u leenahay in dadka iyagaan abaabulo oo xuquuqa siyaasi oo ka maqan ama dawladda kelil kaga maqan ama dawladda dhexe kaga maqan inaan ku abaabulo.